sixir bararku waxa uu ka mid yahay aafooyinka haysta bulshooyinka kala duwan ee ku human dunida kaasi oo saameyn toban iyo tobanba ku yeesha kobaca bulshada dhinacyada nolosha ee khuseeya baahiyaha aasaasiga ee bulshada sida maalinlaha u isticmaasho Soomaaliland guud ahaan iyo si gaar ah magaalada Burco waxa labadii caanamal ee u dambeeyay laga dareemay koror dhanka qiimaha lagu gado shaaha kadib markii sida ay sheegeen mulkiilayaasha leh maqaaxiyaha shaaha loogu iibiyo shaaciyeen in ay 500 oo shilinka Soomaaliland ah ku kordhiyeen halka koob ee shaaha ah taasoo ciidanka booliiskuna xabsiga u taxaabeen badiba mulkiilayaasha meheradahani haddaba subaxnimadii maanta ay ahayd markii mas'uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco iyo mulkiilayaasha iska leh maqaaxiyaha shaahu si wada jir hawlaha hadleen warbaahinta iyagoo mulkiilayaasha maqaaxiyuhu sheegeen in xilligan loo guda jiro bulshadu qaadi karin koror ku yimaada baahiyaha asaasiga waxaana ka mid ah hadalladii sida tan annagoo ah ganacsatada ka ganacsata maqaaxiyaha halkan shirkan aanu isugu nimi oo ah in aw yara kacayd shaaha aan kor yar qaadnay hadaan nahay ganacsatada shaaha taasoo ay nagu kaliftay duruufo ku xeeran sixir bararkan ka jira wadanka oo dhan gebi ahaan kadib waxay madaxdii gobolka iyo dadweynihii ay yiraahdeen arrinkaasi maaha arrin haddii beedankeeda leeyahay maanta in joojisaan oo sidiisii hore ku wadaan aan ku wadno alxamdulillah annaguna waanu la qaadanay haddaanu nahay ganacsatadii maqaaxiyaha madaxda gobolka taasoo ah inaanu dantayadii uga guuro sharciyada wadanka aanu raacno iyo madaxdeeda aanu aqbalno kana haddii beedankeeda leeyahay aanu joojino sidiisii horena ku celino shaaha aanu ku iibin jiray ayaanu kordhinay magaalada Burco aanu kordhinay ee aanu anagu u aragnay in aanu ku qasaarobayno haddii aanu ku iibino sixirkan oo aanu saa u aragnay dhammaantii waanu ka noqonay waxaanu ku celinay kushling sidaasaanu isla garanay haddaanu nahay maqaaxiyaha Burco balse waxaanu idin sheegaynaa kelmad ah xeero ninkii og ayuunba hoosteeda waxa ku jira waxa weeyaan shaaha hadalkan inna si wili baalayna si u qaad dadku sokor u baydhaan sokor war sokor ma aha dhuxushan ugu kacsan oo 80 caanaha ugu kacsan oo 5 iyo 10 waxyaabo fara badan baan ugu kacsan oo ognahay liisanadii baan lagu kordhiyay wax shay kasto oo dawladda hoose ugu kordhiyay inta baan wada qabno wada dib baan ugu haydo anagu deed tacadi baan arkay sixir bararkana hor socod ma nihina waxaan nahay dub socod anagu kuwa ka dambeeya baan 2 sanadood cagahan dhulka ku haynaa anagu mar haddii saasaan isla garanay oo aan isku qalcinay hadaan nahay maqaaxiyaha Burco waanu qaadanay waanu aqbalay sidaa waanu ku dhinshahay waa run duruufaha adigu hawsha markaan eegnay markii aan u aragnay in duruufaha ay nagu xiliyeen baan u kordhinay sabab kordhiska wuxuu keenay adigu cilad badan kacdoon shacab uu keenay cabasho badan buu keenay sida awgeed hawl badan buu keenay waanu muddo waan xilnay waanu eegnay hawlihii waxaanu go'aansanay markii aanu shirnay war hawshaynu kordhinay hawshaynu go'aansanay qaanidanteena ahayd iyo tii shacabka iyo dadkii kale way kala yeelisi danta shacabka inta yar iyo inta weyn waxa la qaataa la taxiyay inta badan waayo waxa weeye xadiiskeena aba sheegaya wixii hadii durfaad iyo sharciga haddana hadii wax ka weyn wixii keeno deena wixii ka talaashay waashii sida awgeed ayaan uga talaashnay gabagabadii iyaguna waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur iyo sidoo kale taliyaha qaybta gobolka Togdheer Cabdi Cali Xayd ayaa iyaguna sheegay in waajib ku tahay in bulshada loo naxo laguna dadaalo sidii loola dagaalami lahaa sixir bararka iyo waxyaabaha sababaya waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan waxa sharaf weyn inoo ah inaynu halkan ku ilaaminayno go'aan la xajeclo go'aan muwaadinimo go'aan geesinimo oo ay maaragtay gaadheen ama soo jeediyeen mulkiilayaashii maqaaxiyaha magaalada Burco ee dhawaanahanba sida saxaafadda iyo dadku ay ka warhayaan qiimaha shaaha kordhiyay soo qiimuhu markii hore ahaa 1 shilin ka dhigay 1500 maanta oo taariikhdu tahay 19 bishii 6aad xafiiskan barasaabka ee aanu isugu wada nimid madaxii minjaba aad iyo aad waxaan u hambalyeynaa oo u soo dhaweynaa si mug iyo miisaan bale iskaashatada maqaaxiyaha ee magaalada Burco oo runtii qiimihii shidaalka ayaamihii imka ugu dambeeyay qiimihiisi kor uga qaaday isla markaana koobkii shaaha ka dhigay 1500 waxaanu mar labaad ugu mahadnaqaynaa iyagu caqligoodii iyo tashigoodii ka gartay inay khaldan yihiin oo ay iyagu qaateen khaladka
kadib markay mushaawir galeenna ay isla qaateen inay kunkiisii shilin ku celiyaan koobka shaaha maanta ay tahay bishu 19 bishii 6 2018 waxaan aad iyo aad halkan mataqaanaa aan aad iyo aad ugu salaamayaa oo aan mataqaanaa ku boorinayaa go'aankii ay gaareen iyagu ay shakhsiyan gaareen milkiilayaasha shaaha oo maanta ku dhawaaqay qiimihii dhowrkii cishe iidii ka dambeeyay ay kordhiyeen ay ka tanaasuleen iyagu iskooda ka tanaasuleen iyagoo dadweynahooda u naxaya Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco